كعقال دبك كبختي سوى شيء كلام taayire gubati mooyee wax khasaare nafeeda oo halka ka dhacay ma jiro soo ragashay inay doonta ka jeedaan meeshii ay geeyaan badweynta si aanay khasaaraheeda halka si loo xakameeyo inay khasaare geysan doontaas waxay ku xidhnayd deked hore oo laga guuray deked xadiid la yiraahdo oo inta badan scrapku lagu ururiyo doontaasna dabkaas qabsaday muddo dheer meesha way joogtay way taalay iyaduna maanta oo bishu 8 tahay dab ka kacay doon aad u yar oo kuwa kalluumaysiga ah oo ku xidhnayd meel ka baxsan dekeda oo u dhow muxuu ahaa dekeda kalluunka ee nagfishta loo yaqaano waxaan halkan uga mahadnaqayaa ciidamada kala duwan ee ay ugu horeeyaan ciidanka dabdamiska ciidanka mariinada qaybta dabdamiska ee taagaga dekeda ciidanka booliiska iyo guud ahaanba cid kasta oo gurmad ka gashay hawsha oo hadda aynu xakameynay dabkii lana baktiyay doontii yarayd ee ku dul xidhnayd waa doonta magaceeda waxa la yiraahdaa Marwan B markab anesthesia la yiraahdo iskaraab oo gaboobay ayay ku dul xidhnayd dekedan waa deked xadiidii waa meel laga guuray oo Ingiriiska xilligiisii la dhisay alxamdulillah doonta taayire gubati mooyee wax khasaare nafeeda oo halka ka dhacay laashashkii kalluumaysiga iyo markabkii scrapka ahaa ay ku dul xidhnaydna waanu ka badbaadinay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida geesinimada leh ee inamada qaybta taagaga ee dekeda ka shaqeeya doontaas oo ololeysa iyo ciidanka mariinadu labadaas oo iskaashanaya doontaas oo ololeysa inta ay fuuleen xarkaha suleen dabeedna taagu ka jiiday ee uu ka saaray aagii si wanaagsan oo geesinimo la ay uga hawlgaleen waan ku amaanayaa waxa kale oo aan mar labaad halkan uga mahadnaqayaa oo aan ku amaanayaa hawlgalka geesinimada leh ee ay fuliyeen ciidanka dabdamiska ciidanka mariinada ciidanka booliiska waxa gurmadka qayb weyn ka ahaa Allah ka jisaysiyo maamulka gobolka oo dhan iyo maamulka degmada oo meeyarku ugu horeeyay iyo ku-xigeenka barasaabka gobolka ahna ku simihii barasaabka si wanaagsan oo milgale ayay arinta iyaguna uga soo gurmadeen hadda waanu xakameynay dabkii wax dhibaato ah oo meeshii ka jiraan ma jiraan alxamdulillah waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa halkan aan u marinayaa doonyaha yarare kalluumaysiga maadaama oo aynu ku jirno xilli gaaya oo dabaylihii xagaagu ay dhacayaan inay taxadir weyn sameeyaan hadda doontan waxa la sheegayaa dabka gudaheeda inuu ka kacay waxa sababay booliiska baadhistiisii gacanta ku hayo aynu u daynaynaa ayaa wuxuu dab ka kacay doon ku xidhnayd meel ka baxsan dekeda oo xeebta u dhow dhinaca Mariniska oo ahayd dekedii hore ee Ingiriiska u dhisay ay ku xidhan jireen doonyo muddo dheerna ma kaan shaqaynin doontaas ayuu dabku ka bilaabmay sida la sheegay doonta magaceeda waxa la odhan jiray Marwan Sibonaag gurmad weyn ayaa laga galay hawshaas waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa walan dekeda Maria dekediya teamkiisa ciidanka taliya Mariniska iyo ciidankiisa oo si ballaaran uga hawlgalay arrinka kana hortagay inay dabkaasi maadaama ay dabala dhacayaan waqti xaagal lagu jiro inuu ku fido eriyadaas ay ku xidhnay doontu iyo markabku waxa uu soo ragashay inay doonta ka jeedaan meeshii ay geeyaan badweynta si aanay khasaaraheeda halka si loo xakameeyo inay khasaare geysan hawshaas si wanaagsan baa looga hawlgalay waa nasiib wanaag inaanay cidi waxba ku noqonin cidi ku dhaawacmin khasaare kale aanu iman marka laga tago dhibaatada soo gaadhay doonta gubatay arintaas intaasay ku koobnayd waxa runtii xusid mudan oo aan marlabaad u mahadnaqayaa Maria dekediya teamkiisa iyo taliyaha Mariniska iyo ciidankiisa iyo cid kasta oo ka qayb qaadatayba waxa runtii iyaguna dadaalay oo shaqo ballaaran qabtay oo dabkaas xakameyntiisa ka qayb qaatay ciidanka dabdamiska oo mar walba iyo waqti kasta heegan oo ah sidii ay dalkan iyo dadkan ugu shaqayn lahaayeen uguna badbaadin lahaayeen dhibaato kasta oo timaada meel fadhiyo kale gudoomiyihii gobolka gudoomiye ku-xigeenkii ah kusimaha gobolka gudoomiyaha gobolka taliyihii booliiska iyo saraakiil kale oo fara badan iyo xildhibaano ilaahay baa mahad leh arrintaasi sidaas ku soo gabagabowday runtii hawsha halka ka dhacday doonta dabku qabsaday
waxaa warbixin waafiya inaga siiyey maarayaha dekedaha jamhuuriyadda somalilan cali deeriye annaga inteedu waxa weeye inaan u mahadnaqno dhammaan cid kastoo ka gacan geysatay hawsha xakamaynteeda maareeyaha saraakiisha ciidanka badda shaqaale weynaha dekedda ciidanka dabdamiska ciidanka bilayska dhammaan cid kastoo ka gacan geysatay baa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shaqada fiican ay qabateen runtii sidaa la sheegay doontaasi waxay ku xidhnayd deked hore oo laga guuray deked xadiid la yidhaahdo oo inta badan iskaraabku lagu ururiyo doontaasna dabkaasaa qabsaday muddo dheerna meesha way joogtay way taallay iyaduna alxamdulilah waxaa ilaahay mahadiya in dhammaan howlwadeenadii ka howlgalay ay naga xakameeyeen oo laga jiiday meeshii halkaana lagu baktiinayo hawshaasina sidaasay ku dhammaatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan ciidanka bilayska iyo militariga iyo badda iyo howlwadeenada dekedda iyo maareeyahoodaba dadaalkaa fiican ay sameeyeen baaristiina waxaa gacanta ku haya ciidanka bilayska insha allahu natiijada aynu ka sugi doonaa waxaan usoo jeedinaynaa dhammaan doonyaha kuwa shaqaynaya iyo kuwa kaleba in xilliga lagu jiraa uu yahay xilligii xagaaga lagana feejignaado wax kastoo la shidanayo wax kastoo la isticmaalayaba